waxbarashadiina waga faaraxa ugu tagina guurha ugu tagina daraagiska gabdhaha isticmaalo waxay aad badankooda soo dhumiyeen waxbarashada waayo cilmiga maadiga iyo diiniga aqli badan uu ku yeelaya wuxuu ka dhigayaa naag adag iyo nin adag facaaga ma u jabaysid because ilaahay subhanahu wa ta'ala barita haduu irsaaq ku calfo waxa tahay nin qalinka wax ku qor yaqaan iyo gabar maskaxdeeda cilmi ka buuxo ma u baahan tahay faarax inuu aad tugsatid ma u baahnid faaraxna ma u jabaysid adna xaliimo kaleeto faarax ma kaaga aqli badinaayo nolosha abaa ilaahay ha lagu xirnaado ilaahay ha laga bariyo wax walba oo wanaagsan waalidka ha la ilaaliyo waalidiinta qaar badan dhibaataysan mid ogaada waalidiintan oo ilmahooda yaani banaanka taagan oo hadda daraagiska isticmaalo guryaha ku ooynay hadana la caawinin wallahi billahi tallahi waalid kasta ya ilintaas way sugeen ogaada hooyo walba dawlad horta ha sugina dawladda ilmahooda ama mas'uuliyadda ilmahooda ma aragteen wali mucaaradka hadlay ma aragteen in daraagiska la joojiyo ma aragteen ilaahay inta ka cabsatay ma aragteen wali mucaaradka hadlay dhalinyaro la dhibaateeyo maanta oo la baabiyo ma maqasheen qofka hadlay male dhalinyarada muqdisho baahiya hayso meeqa guryaha ku baahan wali ma aragteen ma arkeen because qof walba ilmihiisa intuu ka wada anoo kale maanta xil markii la ii dhiibo booska ugu horeeya qadaadicda kale ilmey wiif magaalada waa ka waday yaa jooga magaaladan lagu gubanayo hooyo masaakiin ilmaheeda bixi karin iyo aabba maskiin oo waxba awoodin iyo ilmo masaakiin oo meel buu dhaqaaqi karin iyo gabdho qurux badan oo dantii duruufta ciisho la rabo in laga faa'iideysto markii ay insirin mucaarad mar walba dawladdu ku dhagan yahay dawladdu mucaaradda isku dhagan yahay dhalinyarada dhumayso ya dawladdan hadda fiiri ayaan horeeto markaan ra'iisul wasaaraha arintan u geenayay hadduu ra'iisul wasaarihi baa xataa dadka ka dambeeyay way si qaban lahayn ooshi laakiin afraad sac way ku dhagan yihiin wax dhahay ma aragteen meeshan laba saddexdan kalaab oo ummadii baabiisa hal xir wali ma aragteen maxaa aqliga naga qaadayo ilaahay ha laga cabsado ilaahay laga xishoodo hooyada cunugeeda caasiga ku ah wallahi billahi tallahi hadana loo arxamin caasiyal badana dhalanay arada ilaahay dad badana ku dambi ku soo gaaraya marka insha Allah bidnillaahi kariim waxaan ma in jeclahay dhalinyaro idinkan ilaahay ha in jeclaado waxaan rabaa nolosha ina meel sare ka gaartaan ilaahay ku xirnaado hooyo kasto dhibaataysan caawiyo anigana waa ku faraxsanahay ina maanta wajigiina soo hor fadhiisto ilaahay subhanahu wa ta'ala hanaga qabto kuwa ganacsiga u yimid ee daraagiska ka ganacsanayo oo masaakiinta dulminayo hooyooyinka ka oysiinayo ilmahooda daraagiska siinayo gabdhahana sharaftooda lagu baabeenayo is ilaaliyo gabdho wiilal idinkuna dadaala faca meeshu gaar waa gaari kartaa faarax makaa sareey ada uu sareysid ilaahay wuxuu ku qoray magafaysid xaliimo waa qurux badan tahay arkubin abaayo muraayad isku fiiri naka qurux badan ma jirto marka yaa lagu sirin yaa lagu gaadin yaa lagu dhihin waxaana ku qabanayaa kan iisi abuu kama isiinaha oo soo waca sugaala dhahaa block ayta ma fiicnaba markuu jidka ku arkana maxaa dhee yusris nuuca kale aniga ma wala sheekaysto bariya hooyo abay dhaleen nin nuucee tahay baxaada dhahaa